Soomaaliya waa dal ku yaalo Geeska Afrika oo leh xeeb aad u dheer. Waxaa lagu qiyaasaa in ay tahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, in ka badan 3,333 kiiloomitir. Xeebahani waa hodan dhanka kalluumaysiga, dalxiiska iyo dhaqanka, bal aan maanta u dalxiisno xeebaha ugu quruxda badan Soomaaliya. Haddaba like inoo saar, subscribe-tana ha inaga baqaylina. xeebta Lido, Muqdisho. Xeebta ugu caansan caasimadda Soomaaliya waa Lido. Waa meel dadka reer Muqdisho iyo martida dalxiiska yimaada ay ku nastaan, ku dabaashaan iyo cunno badeed kala duwanna ka cunaan. Lido waxaa qurxiya ciid cad oo jilicsan iyo biyo buluug ah oo nadiif ah. Habeenkii maqaayadaha iyo fadhiga xeebta ayaa iftiinka iyo muusiga nool ka qurxa. xeebta Jasiira, Muqdisho. Qiyaastii 15 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho. Waxay ku taallaa xeebta Jasiira. Waxay caan ku tahay jasiiradaha yaryar oo ku dhow xeebta, biyaha oo aad buluug u ah iyo kalluun fara badan. Waa meel ay jecel yihiin qoysaska doonaya inay fasaxa ku qaataan jawi degan. xeebta Xaafuun, Bari, Puntland. Xaafuun waa xeeb qadiimi ah oo leh taariikh ganacsi oo fac weyn xilligii Farciinta iyo Carabta. Xeebtani waxay leedahay ciid cad oo dheer, biyo nadiif ah iyo kalluun badan. Waxaa kaloo Xaafuun caan ku tahay qoryaha udgoon iyo ganacsigii hore. xeebta Calula, Bari, Puntland. Calula waa meel xeebeed taariikhi ah oo ku taal waqooyi bari Soomaaliya. Xeebaha Calula waxaa lagu yaqaanaa quruxda buuraha ku dhow iyo xeebaha ku xiran. Halkaasi waxaa ka muuqda isku dhaf buur iyo biyo iyo ciid. xeebta Boosaaso, Puntland. Boosaaso oo ah magaalo ganacsi weyn waxay leedahay xeeb qurux badan oo ay ku nasato bulshada. Waxaa kaloo halkaasi lagu arkaa doonyo kalluumaysiga iyo ganacsiga, taasoo muujinaysa isku dhafka dhaqaalaha iyo dalxiiska. xeebta Berbera, Somaliland. Berbera waa tekad weyn oo taariikhi ah, waxayna leedahay xeeb aad u dheer oo qurux badan. Biyaha Berbera waa buluug dhalaalaya, waxaana halkaasi ku badan xayawaanka badda sida kalluunka iyo qoolleyda. Dalxiisayaashu waxay halkaasi ku raaxaystaan dabaasha iyo qubeyska quruxda badan. xeebta Ceelmacaan, Shabeellada Hoose. Xeebta Ceelmacaan waxay ku taallaa meel ka baxsan Muqdisho. Waa meel caan ku ah kalluunka iyo qaniinada qorraxda. Xeebtani waxay ku fiican tahay qoysaska iyo dadka doonaya deganaanshaha. xeebta Kismaayo, Jubbaland. Kismaayo waxay leedahay xeeb weyn oo qurux badan, gaar ahaan Lido. Kismaayo waxaa lagu yaqaanaa kalluunka, doonyaha iyo jawi dalxiis ah. Xeebaha Kismaayo waxay ku habboon yihiin qubeyska iyo safarka doonyaha yaryar. xeebta Ras Caseer, Bari. Ras Caseer waa meesha ugu waqooyi bari Soomaaliya, halka badweynta Indiya iyo Badda Cas ay isaga kulmaan. Waa xeeb leh buuraha dhaadheer iyo biyaha buluuga ah oo xoog badan. Ras Caseer waa meel dabiici ah oo aad loo xiiseeyo. xeebta Hobyo, Galmudug. Hobyo waa magaalo xeebeed caan ku ah taariikhda iyo xeebaha. Ciidda Hobyo waa mid cad oo jilicsan, biyaha badduna waa midabka buluuga ah oo dhalaalaya. Hobyo waxay ahayd xarun ganacsi qadiimi ah oo la xiriiri jirtay Carabta iyo Eeshiya. Ugu dambeyntii, xeebaha Soomaaliya waa hodan dhanka dabiiciga iyo dhaqanka. Waxay isku daraan taariikh, dalxiis, kalluumaysi iyo nolol bulsho. Haddii si wanaagsan loo horumariyo, xeebaha Soomaaliya waxay noqon karaan kuwa ugu caansan caalamka.